waxa si tallaabo ah isu soo taraya tallaabooyinka horumarineed ee ay ku tallaabsatay Somaliland. Magaalada Hargeysa oo ah halka uu ka bilaabmo horumarku waxa markii ugu horeysay ka hirgalay garoon u khaas ah hablaha kaasoo ay ku ciyaaraan kubadda cagta iyo qaybaha kala duwan ee jimicsiga. Amuun waa maamulka guud ee garoonka waxay ka sheekeynaysaa sida ay ugu suura gashay iyo waliba waxyaabaha ku dhaliyay. Waxaana wax ka weydiiyay qaabka labiska hablaha marka ay ku guda jiraan ciyaaraha maadaama uu jirka habluhu yahay cawro. run ahaantii way iska adagtahay marka hore markaynu ka hadlayno bulshadeena in garoon habluhu meel ay ku ciyaaraan la helo. fikirka waxa iska lahayd walaashayga weyn garoonka asaastay Nasraadan Ismaaciil iyadana run ahaantii aad iyo aad u soo dhabar adeegtay in garoonku maanta heerkan soo gaadho. marka hadda maamulka aniga haya marka hore challenge badan ama dhibaatooyin badan way nagala soo kulmeen inaanu garoonkan asaasno laakiin ilaahay mahadi kadib waxaan isla helay dhowr hablood oo isla jaan qaaday oo garoonka fahmay faa'iidooyinka fitnessku leeyahay iyo maxaa la yiraahdaa dhabar adeeg badan iyo wacyigelin badan ayaa noo suurtagelisay ilaa hadda garoonku maanta socdo. adoo ma ciyaartaa aamuneen kubadda ها كبد وان عيارة أرسو وحن عيارة aerobics عيارها لا يراهدا ما physical exercise كلا يراهدو جميع شركة أيضا لاستعمال قلب برأي وحياة بهاسي. دينعتك عيارتك كبد ويبوسيشن بدن تاي أدو دينعتك عيارتها. إن مصلي أنا وحن كعيارة إن قيبتها دفاع. والله ما دام ماشوا تاي حبل خاصة. قفل بتشوسكي سوق عيارة وايد هو حبل خاصة عدم رجع أركز هم يشرتو كوتشكو وإنن حبل عيارة وحبله بقى قفل بقى على اختيار كيسوي حضان وحدان ده طبعا سروال بالحدان يا سروالهم بحدان ciyaaraha iyo isboortigu waxay soo mareen maraaxil iyo heerar kala gedisan hadana inkastoo bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ay ku cusub tahay hablo ciyaartaga garoon si ay u soo ciyaaraan kubadda cagta iyo waliba qaybaha kala gedisan ee jimicsiga hadana waxaan la kulmay qaar kamid ah hablaha ku ciyaara garoonkani Marwa iyo Suleekha ayaa kamid ah waxaanay sidoo kale kamid yihiin hablaha ugu xariifsan ama ugu laacibsan ee ku ciyaara garoonkani waxayna iiga sheekeynayaan dareenkooda iyo waliba isbedelka ku yimi marka ay bilaabeen ciyaarista kubadda cagta iyo waliba qaybaha kala guddisan ee jimicsiga walaalo kabtanka ka waran waqtimaad bilowdeen ciyaarista kubadda cagta wallahi ilaa imka waxaan ciyaarinay ubax fitness center waxaan ciyaarinay ilaa imka 8 bilood in ku dhawaan ciyaarina oo garoonku inta furan yahay waan ciyaari jirnay waqtigii aan ciyaari jirin kubadda iyo imkaad kubadda ciyaarto faqri inteeleg baa ku dhaxeeya horta farqiga u dhaxeeya aad buu badan yahay oo maxaa haday markaan imidaya imika isku mid manihin waxyaalaha waxa kamid ah inay fursad ay noo sameysay mulkiilaha meesha Nasraadan oo aad iyo aad ugu mahadnaqayno waxay noo sameysay garoonka aad ka quruxda badan leh garoonkan habluhu waxay ku ciyaaraan aerobicska waxaan ku ciyaarnaa sidoo kubadda cagta taasoo هو سهل سيني شركة اسمه يعني فرعوني أتكينسو سو كلا ماشو كلا استرس المفروض كلا أي كين كرتين وقف كول اسمه طب بدون الحكاية مسين رنهانتي إناني محا هذي هبلوه عياري كرين لكن رنهانتي مركز أركت قرونك وحد أركز عين هبلو بدن أو حتى يابسو ويد كوجنتو لاقي هاي يسوي عياريان أتكيابسو حن كعيارة بدنا دفاع يقولك لبدا بون كعيارة مدين تلاقي عيار سكبده muddo waxaan ciyaariyay horta halkan 8 bilood aan toos u ciyaariyay 8 bilood wax isbedel ma dareentay intii aad ku bada ciyaartay in badan wax badan baad dareemaysaa waxyaabaha isku aragtay markii aad ku bada bilowday maxaa kamid ah kulli markii aan ku bada bilaabay maxay tolay waxaan u bilaabay aan maxay tolay inaan amba food ka rido amba aan ciyaarta masoo dhidid badan iyo wax badan caafimaadkaaga ayaad u bilaabaysaa markaad wax badan oo faa'iido u jirto isku soo wada duubo garoonkani ma aha mid ay kaliya ku ciyaaraan hablo dhalinyaro balse xataa waxa ku ciyaara hooyooyin sida ay ii sheegtay maamulka garoonkani Walibaan Ismaan Ali iyo Ridwaan Bukhari telefishinka Ariel magaalada Hargeysa